shirkadda Dahabshiil Group ayaa $500,000 ugu deeqday kulmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay iskooyska Soobe. Gudoomiyaha iyo maamulka sare ee shirkadda Dahabshiil Group waxay tacsi u dirayaan eelkii iyo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay iskooyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Shirkadda Dahabshiil Group iyadoo la qaybsanaysa dadkii Soomaalida murugada iyo xanuunka ka dhashay qaraxyadii Soobe waxaa lacag dhan $500,000 ugu deeqday dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaasi. shirkaddu waxay $250,000 ugu deeqday dadka dhaawaca $250,000 oo kalena waxay la sii doonaa ganacsatadii yaryareed ee ganacsigoodii ku waayay qaraxa iyadoo dhammaantood loogu shubi doono akoonadooda dahab ee shirkadda Dahabshiil waxay deeqdan u xil saartay guddi madax bannaan oo kormeeri doona qaybinta deeqda. sidoo kalena shirkadda Dahabshiil Group waxay dhaafi doontaa dhammaan khidmadaha laga qaado dadka doonaya inay lacago tabarucaad ah si marsiiyo guddiga madaxa bannaan ee Dahabshiil Group. ugu dambeyntii shirkadda Dahabshiil Group waxay mar kale tacsi u diraysaa dhammaan eheladii iyo qoysaskii dadkoodii ku waayay qaraxyadii Soobe. Khadarseed, Bulsha TV, Hargeysa. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.